halkan waa janaalkeena TV waxaan kula wadaagayaa war degdeg ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ku tagaya magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta halkaasi oo uu ku sugan yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wada hadal xasaasi ah ayaa halkaasi ku dhexmaraya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Madoobe Xasan Sheekh shuruudo badan ayuu wataa oo uu Axmed Madoobe hordhigay si uu ula heshiiyo dagaalka uu ku hayaan uu u joojiyo halka Axmed Madoobe dhankiisana shuruudo adag uu soo bandhigay Imaaraadka Carabta muxuu yahay danta uu ku qabo in Xasan Sheekh iyo Axmed Madoobe uu heshiisiyo isla markaana uu dalkiisa ku martiqaado labadooda si ay u wada hadlaan waan kula wadaagi doonaa dhowr toddobaad ka horna waxa la baahiyo xog ku saabsan in qadka telefoonka ay ku wada hadleen Xasan Sheekh iyo sidoo kale Axmed Madoobe haddaba shan qodob oo waaweyn oo xasaasi ah oo shuruudo ah oo uu wata Xasan Sheekh ayaan muuqaalkan ku eegaynaa Axmed Madoobe dhankiisana shuruudo adag ayuu wataa iyadana waan kula wadaagi doonaa soo dhawaada sidee u aragtaa inay heshiiyaan oo ay si furan u wada hadlaan oo face to face ah Xasan Sheekh iyo Axmed Madoobe oo muddo sanad ah dagaal uu dhexmaray ilaa ay haddana dagaalkooda uu socdo oo gudaha dal isku haysto aragtidooda nala wadaagi kartaa Xasan Sheekh Maxamuud miyay dan ugu jirtaa inuu la heshiiyo Axmed Madoobe mise Axmed Madoobe ay dan ugu jirtaa inuu Xasan Sheekh la heshiiyo si ganacsigaagu u noqdo mid guuleysta ama ka saramara ganacsiyada kale ee la midka ah waxa uu u baahan yahay suuqgeyn ama xayeysiin casri ah oo ku habboon ma doonaysaa inaan kuu sameeyno xayeysiin casri ah isla markaana qiimo jaban ma rabtaa inaad hesho macaamiil badan haddaba anaga ayaa kaala shaqayn doono sameynta xayeysiimo casri ah iyo kor u qaadida horumarka ganacsigaaga waa xalka ugu wanaagsan ee kobaca ganacsigaaga soo dhawaada aan gudagalno faahfaahinteena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaan xogo ku helaynaa inuu safar degdeg ah ku tagayo magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta halkaas oo uu kaga sii horeeyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Xasan Sheekh Maxamuud saddex maalmood kadib ayuu tagi doonaa dalka isu taga Imaaraadka Carabta xogo waxaan ku haynaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu dhowr maalmood ka hor madaxtooyada qaranka ku qaabilay wafdi culus oo ka socday Imaaraadka Carabta oo si qarsoodi ah ku yimid magaalada caasimadda wafdigaasina waxa hogaaminayay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta waxa ay ka wada hadleen sida Imaaraadka Carabta uu kaalin uga qaadan karo inuu soo fargeliyo xiisadda Jubbaland iyo dowladda dhexe isla markaana uu heshiisiyo labada dhinac madaxweyne Xasan Sheekh ayaana dhowr qodob la wadaagay Imaaraadka Carabta qodobadaasina waa kuwa shuruudo ah oo Axmed Madoobe la hordhigayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay in Axmed Madoobe haddii shantan qodob uu si toos ah oo aan leexleexasho lahayn u fuliyo in dowladda federaalka ay cunaqabataynta ka qaadi doonto la heshiin doonto dagaalka ay ku haysana ay joojin doonto qodobadaasi marka maxay yihiin shan qodob ayaa ugu waaweyn shantana waxay kala yihiin in Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland uu ka laabto doorashadii uu ku soo baxay ee Kismaayo ka dhacday dhamaadka sanadkii tagay ee 2024 doorashadaasi dabcan villa Soomaaliya way ka carootay taasina waxay keentay in Axmed Madoobe la weeraro dowladda ciidamo badan ay geysay Raas Kamboni halkaasina dhiig uu ku daato oo dagaal uu ka dhaco waxa kale oo Xasan Sheekh uu soo bandhigay oo shuruud ah in Axmed Madoobe uu ku soo laabto shirarka wada tashiga qaranka isla markaana xisbiga madaxweynaha Soomaaliya uu ku biiro si uu ugala shaqeeyo ajandayaasha villa Soomaaliya sida maamul goboleedyada kale hadda waxaad aragteen in lafta gareen qoorqoor Cali Guulaawe firdhiye inay ku jiraan xisbiga madaxweynaha jamhuuriyadda qaybna ay ka yihiin arinta saddexaad ama qodobka saddexaad waa inuu Axmed Madoobe dastuurkii la ansixiyo ku dhaqmo oo uu villa Soomaaliya la shaqeeyo iyo tan shanaad oo ah in Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland uu isaga haro xiriirkan uu u jaro Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha maamulka Puntland iyo mucaaradka uu hogaamiyo Sheekh Shariif shantaas qodob oo midba mid kale ay ka adag tahay ayuu Xasan Sheekh Maxamuud soo bandhigay lana wadaagay Imaaraadka Carabta oo dhexdhexaadinaya
shantaas qodob haddaba lama oga Axmed Madoobe wax uu ka qaadan doono iyo wax uu ka diidi doono laakiin isagana shuruudo ayuu wataa shuruudahaasina dabcan uu soo bandhigay marka ay Abu Dubai isku arkaan oo ay ku kulmaanna dabcan wada hadallo kale ay yeelan doonaan waxa la eegi doonaa maalmaha soo socda haddii wada hadalkan uu guuleysto oo dhinacyadan ay si toos ah isugu yimaadaan isla markaana ay si public ah u shaaciyaan inay ka heshiyeen khilaafaadkii iyagu u dhaxeeyay imaaraadka carabta waxaad ogaataa in marnaba aan la isku haleyn karin oo aan saaxiib galin oo aanay saaxiib galin sababtoo ah dhagartooda ayaa badan sidoo kalena ma ogola in Soomaaliya ay heshiis ahaato nabad ahaato arinta hadda uu sameynayo ee dhexdhexaadintana dabcan far ayaa ku gudan sida dad badan ay aaminsan yihiin oo falanqeeyaal ah isla markaana waxay qabaan aragti ah in imaaraadka carabta dan uu ku qabo in Xasan Sheekh iyo Axmed Madoobe uu heshiisiyo dhagarta marka uu maagan yahay imaaraadka carabta cid sheegi karta hadda ma jirto laakiin gadaal ayaa laga ogaan doonaa imaaraadka carabta iyo madaxweyne Xasan Sheekh muddaba iskuma fiicnayn laakiin dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay xiriirkooda ayaa soo laabanayay madaxweyne Xasan Sheekhna madaxtooyada wafdi badan oo imaaraadka carabta ka socda ayuu ku qaabilay oo uu kala hadlay xiriirka labada dal iyo sida dhinacyadan ay u wada shaqeyn karaan haddaba Axmed Madoobe shalay ayuu gaaray magaalada Abu Dubai ee dalka isu taga imaaraadka carabta wuxuuna halkaas kula balansan yahay madaxda ugu sareysa dalkaasi halkaas ayaana lagu heshiisiinayaa isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh haddaba yay faa'iido ugu jirtaa in la heshiiyo ma Xasan Sheekh ayaa faa'iido qaba mise Axmed Madoobe ayaa faa'iido qaba waa su'aalaha ay dadka badi isweydiinayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh danta uu ku qabo in Axmed Madoobe uu la heshiiyo dadka waxay ku tilmaamayaan laba arin arinta koobaad waxay tahay in marka hore haddii ay wada heshiiyaan dhinacyadan Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland uu xisbiga madaxweynaha ku biiri doono taasna Xasan Sheekh ay guul u tahay tan labaadna waxa Axmed Madoobe uu ka hari doonaa dani iyo mucaaradka taasna waxay guul u noqon doontaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh dhankiisa waan ka talaabnay waxaan aadaynaa markan dhanka Axmed Madoobe shuruudaha uu wato Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa uu isana soo jeediyay shuruudo badan waxa kamid ah in Xasan Sheekh Maxamuud uu si public ah oo warbaahinta ah uu raaligelin uga bixiyo dhammaan duulaanadii uu ku soo qaaday Jubbaland sida dagaalkii Raskamboni ee Xasan Sheekh lagu jibiyay ciidankiisa iyo dagaalkii Beled Xaawo ka dhacay inuu raaligelin toos ah uu ka bixiyo warbaahintana uu la wadaago tan labaad oo Axmed Madoobe uu soo jeeday waxay tahay in dhaqaalaha ka xayiran Jubbaland la fasaxo oo mashaariicda Villa Soomaaliya ay hakisay Jubbaland loo sii daayo midda saddexaadna waxay tahay in loo daayo kursigiisa oo isaga aan lagu qasbin inuu doorashada ka laabto oo doorashadii dhacday Kismaayo dhamaadka sanadkii hore isaga loo xalaaleeyay Axmed Madoobe Villa Soomaaliyana ay faraha ka qaado midda afraadna waxay tahay in arinta geda ka socota ee dhisida maamulka cusub Villa Soomaaliya ay ka laabato halkaasna ay ku joojiso dhaqdhaqaaqyada ay wado iyo waxyaabaha ay sameynayso midda ugu dambeysana waa in laga laabto warankiisa qabasho ee maxkamadda gobolka Banaadir ay u jartay Axmed Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland isagana shantaasi shuruudood ayuu soo bandhigay shantaba waa kuwa culus oo madaxweyne Xasan Sheekh dabcan ku adkaan doonto in Axmed Madoobe uu xukunka sii joogo doorashadii uu qabsadayna loo fasaxo in waranka laga laabto in raaligelin publiga la bixiyo in maamulka la dhisay la joojiyo waxa soo dhan Xasan Sheekh way ku adkaan doontaa ama madaxtooyada haddaba marka waxa la isweydiinayaa dhinacyadan tanaasul ma sameyn doonaan oo Xasan Sheekhna qodobo qaar ma ka tanaasuli doonaa ninkan kale Axmed Madoobena isagana ma tanaasuli doonaa oo qodobada qaar ma ka tanaasuli doonaa waa su'aalaha ay dadka isweydiinayaan haddaba adiga maxay kula tahay in Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninkan Axmed Madoobe ay heshiiyaan isla markaana wada hadlaan maxay kula tahay sidees u aragtaa aragtidaada wadna la wadaagi kartaa muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inaad share garayso oo meel fog aad gaarsiiso wixii aragti ah waan soo qaadan doonaa qaybta commentiga ayaad nagula wadaagi kartaa